الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب. إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب. ولد الإسلام غريبا واليوم نراه غريب، وصفوا ديني إرهابا والمسلم صار مريب. ولد الإسلام غريب وصى بها ديني، في الحل والترحال، في السلم في الحرب، في الأمن في الأخطار. إسلامنا عظيم، 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 إسلامنا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسيني شنادوي إن شاء الله تعالى وكمل الدروستين منهجك أنا كل شرحيني وحينهم رئيسي إن قفك مسلم كأجاهل كأهان كرو وحياله ما ركت يعني شرك كيني كرا أم كفر كيني كرا محايا لي العلم قاس علمي ضروري أم قفك استوى ما ركت أجي هي معها. waxaan sheegnay xadiidkii Xudayfa radiyallahu anhu ku cadeynayay in aakhir zaman ka iimaanayso waqti dadku aysan aqoonaynin ay iloobayaanba oo maskaxdooda ay ka baxayso waxyaalaha waajibaadka ah maanta macruufka ah oo mashhuurka ah sida salaada iyo soonka iyo waxa la midka ah, kadibna tawxiidka ay ku dhagan yihiin kaliya uu anfacayo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu maaratay ku badbaadinayo. marka maanta anaga salaada iyo soonka waa shay mashhuur ah weeye. qofkii aan salaad inay jirto aqoonin ama inay soon jiro aan aqoonin oo wadada muslimiinta ku nool wala la yaabaya qofka noocaas maxaa yeelay waa cilmi mashhuur weeyaan. qofkii in kale waan gaaloobaya maxaa yeelay waa macluum diin bidaruura, laakiin zaman ba iimaanaya arrinkaas uusan maaragtay soconaynin oo dadka macluumaadkoodu ay aad isku bedelayaan. tan kale waxa weeye mashhuur ah loo baahan yahay meesha in insha Allah ta'ala ku tilmaamno waxa loo yaqaan qiyaam al-hujja. qofka hadii jaahil uu yahay in qiyaam al-hujja hujjada la gaarsiiyo oo waxa loo sheego la jaahil bixiyo ayaa loo baahan yahay inta aan la gaalaysiin waxa maaray aad u fahma loo baahan yahay. marka qiyaam al-hujja waxa loo yaqaanaay marka la gaarayo iyo marka ay ogumayso oo qofkii uu cududaarka uu ka baxayo arrinkaas arrin iskhey maaragtay darajaad la weeye oo heerar kala gadisan leh oo zaman iyo makaan kasta iyo duruuf kastaba qiyaam al-hujjaheeda gaarka ah iyo dadka xujada oogahaya iyo midka lagu oogayo waxyaalo badan ayaa saameynaya oo maartay soo dhaxgalaya. qofkan hadlahayo cilmiga sheega laftiisa sida loo ictiraafsan yahay oo inuu marjic yahay ama inuu diinta ka hadlo lagu aaminsan yahay qayb bay ka tahay. qofka la hadlay laftiisa garaadkiisa iyo fahamkiisa qayb bay ka tahay. cilmiga jawiga yaala iyo bi'ada cilmiga yaala qayb buu ka yahay. marka qiyaam al-hujja markay oogmaysaa وحوي يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والظروف. سيدو كلا وحوي وحلو يقانون المعلوم من الدين بالضرورة لفتيد وحد إذن ومحانك وراها عن نسقامين معها مثل ظروفتي سي أحواشا أي تأثير نيسا وسيدة أن سمر إن مانتي صلاة إنها تهي واجب معلوم من الدين بالضرورة وي إنسانك واجب هي معلوم من الدين بالضرورة وي. لكن زمك وكشا كين هي حديث كحذيفة معلوم من الدين بالضرورة معها. مركب معلوم من الدين بالضرورة وشيء استبدله ودرجات كعلمي مركز جراء هي ضدك أنت أي مارك حقيهين أيه كحرنت هاي. مركب إنه مدة مارد أنا قد دقين أو مدة لعد داره أيه لبه تكلوا حوي أنا قم دام أن تعاد عن هاي ضدك أنا وحش يجنو وجهلي كسرنو أيه مهمة دينوية إن ضدك أن قاليسينو أن كل دقنو دين تكبحان وأن كل دقنو إني مارك تي النار نقضان واحد ضنت أن أما الدعوة أنفعها هي أما الدين تنفعها هي معها.
inta haddii aan kaga baxo mawduucii islaamka iyo iimaanka runtii waa dul marnay laakiin waa mawduuc u baahan in si gaara looga hadlo oo kutubtiisa loo noqdo u baahan yahay waxaan gelaynaa insha allahu tacaala mawduuca ah kufri maxaa la yidhaahaa kufrigu waxa weeyaan sida hadda ku qoran meesha ضد الإيمان إيمانك ضدكيسا ويه waxaa loo jeedaa wixii iimaan ahaa muqaabilkiisu waa kufri wixii aslul iimaan ahaa ka hor imaanayaahi kufrigii sariixa bay noqonayaan wixii alkamaal waajib ka hor imaanayaa kufru dun kufri bay noqonayaan wahaakada waxaa la is odhan karaa oo kufri maxaa loo baranhayaa maxaa lagu falahayaa taa waan soo hormariyey waxaa weeye in annagu aan ka digtoonaano qofka muslimka iska ilaasho ummadana uu ka ilaaliyo walaalihiisa ah si loo badbaado adduun iyo aakhiraba marka yani alkufru ضد الإيمان sidaas ayaa lagu tacriifiyey marka maxaa kufri noqon haya kufrigu laba meelood ayaa asaas u ah markii la soo koobo oo runtii la isku celceliyo labada meelood waxa weeye ama waa takdiib nabiga sallallahu alayhi wasallam la beeniyo quraanka la beeniyo takdiibkaas takdiib الخبر خبرك ما ركتي نصوص فائدينيسو ومقطوع ومتواتر أما قرآنك وشيء إن البينية وقال لي بكينيسا واقيب وحكوا قال لي ما كان هي لما بينين لكن إن لا يلا للديدي إن لا يلا ولو عمل فلو ولا أقبلت ده وجد أقبلت دي يوان يلا يبقى للديدي marka labadaba maartay gaalnimo keenaya midna waxa weeyaan waa kufru takdiib baa la yiraahaa oo kufri aan ku salaysan beenin weeye oo aamin la'aan ay ku salaysan tahay midna waxa weeye waxaana waa runta waa jiraan waa kalaamki ilaahay weeyaan diinta kamid tahay ilaahay baa nagu waajibiyay laakiin yeeli maayo qofkii marka yeeli maayo yira oo maxaan ku wara diidma qayaxan kala hor yimaada diinta waxayna amartay ama maxaan ku wara naga reebtay qofkaasi maartay uu ku gaaloobayaa marka gaalnimada macnaheedu qofku inuu beeniyo kaliya ma ahane qofku hadduu wixii uu diiday yahay uusan rumaynaynin uusan aqbalaynin lafteedu gaalnimo kala weey marka saddexaad culimadu waxay yiraahdaan markii kufriga la baarbaaro xoogaa la tafsiiliyo aduu shan qaybood buu u noqonayaa mid waxa weeyaan kufri ku salaysan saas oo sheegay beenin midna waxa weeyaan kufri ku salaysan diidmo iyo isla weyni midna waxa weeyaan kufri ku salaysan ما ركتي قفكو وحا كان ورقبابا حق u fiirin ma hayaba midna waxa way kufri ku salaysan shaki wixii uu maqlay marka mana diidin mana yeelin wixii uu ka shakisan yahay midna waxa way kufri nifaaq weeyaan marka fiirisid shantan asli oo kufrigu u noqonayo qaarna taqriiban qofka de muslimka inuu ku dhaco ayaa laga yaabaa oo qofka haduu wax beeniyo asagoo muslim ah haduu wax beeniyo quraanka beeniyo axaadiista beeniyo gaaloobaya qofku hadii wixii ilaahay amray oo ilaahay waajibiyay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala xaaraantimiyay qofku kala hor yimaado isla weyni uu yiraa ma yeelin uu yiraa uu gaaloobaya oo waa garanaysaan yani ibliis ku gaaloobo waxa weeyaan ibliis amarka xageebu ka yimid ma ilaahay baa amray ma aysan ahayn waxay ahayd ma rabo asagoo og in maartay amarkii ilaahay subhanahu wa ta'ala oo rumaysan maxay yaday meel ku jiiday ma joogabe ayuu diiday asagoo isla weyn oo ka kibraya marka in shariicada laga kibro oo diinta la diido oo xukun ilaahayna amro waadixa la diido ayadoo la iska weynaysiinayo oo laga santaagahay gaalnimay keenaysaa kufur i'raad waxa soo hoosgalaya ama maaragtay suuradiisu ay maaragtay ku imaan kartaa qofka gaalka ah oo diintan aan soo galin wuxuu ahaan karaa qof diinta maqlo diiday buu ahaan karaa qof aan ka warqayn buu ahaan karaa intuu warka maqlay aan barbaarin oo marunba ma beenba aan barbaarin uu ahaan karaa marka gaalka xaqa gartay oo inta loo sheegay aan rumaynin iyo midka warka inta maqlay aan midna aan baarin isku tacallujin aan iska hubin oo muriisa iskaga mashquulkaay waa kaafir oo mu'rid weeyaan kaafir jaahid ah iyo kaafir mukadib ma ahane kaafir mu'rid weeyaan midna waxa weeye warkii uu maqlay marka ma hubo shaki baa ku jira midna waa nifaaq weey marka kulligood kufrigaas ay soo hoosgalahayaan taas macnaheedu yahay yani kufrigu takdiib kaliya kuma xirna in waxa la beeniyo kaliya kuma xirnaa qofka hadii waxa uu yiraahdo waa sax laakiin ma yeelin oo ma rabo oo marka maxaa ku kalifaya ama way isla weyn yahay
ama wixii buu durayaa ama wuxuu leeyahay cadaalad ma aha ama wuxuu leeyahay war noocaas oo kale sidii baryahan dambe la maqlahayo midda afraad waxaa weeye kufrigu meelaha uu ka dhaco ama uu galaayo waa meelahe dadka qaar baa moodaya kufrigu inuu ka dhaco qalbiga keliya oo kufriga ictiqaad keliya qofka hadduu waxun ictiqaadiyo qofka hadduu ilaah jiritaankiisa inkiro waxa noocaas oo kale qofka hadduu laba ilaah jirta uu yidhaaho oo kale bay u malaynayaan taas keliya ma aha kufrigu wuxuu ka dhacayaa bilqowli wuu ku dhacaa ficilna wuu ku dhacaa ictiqaadna wuu ku dhacaa marka qowl gaalnimaha jira ficil gaalnimo ah ayaa jira ictiqaad gaalnimo ah oo diinta looga baxayo ayaa jira marka haddii qofku uu qowl la yimaado lagu gaaloobayo ama uu la yimaado ficil lagu gaaloobayo ama uu la yimaado ictiqaad lagu gaaloobahayaa qofkii waa gaaloobay dabcan ictiqaadka anagu dee qalbiga ma geli karnee qofka ictiqaadka gaalnimada ah dabcan carabkiisa ayuu soo marsiinaya lagu fahmahayaa laakiin hadduu qarsado qofkaasi munaafiq buu noqonayaa marka kufriga noocaasa oo qowliga ah ama ficliga ah ama ictiqaadiga ah waa lagu gaaloobayaa shardina ma aha qofku inuu marka istixlaalsado maxaa yeelay istixlaalku waa maaragtay waa kufrinimo mustaqila weeyaan midda shanaad waxaa weeye kufrigu darajooyin buu leeyahay midka weyn oo diinta looga baxo walciyaadu billahi tacaala kufri akbar baa la yidhaahaa mid ka hooseeyaa jiro asqar ayaa la yidhaahaa sidoo kale shirkiga asna akbar buu leeyahay asqarna waa leeyahay sidoo kale nifaaqa akbarna waa leeyahay asqarna waa leeyahay sidoo kale dulmi weyn baa jiro gaalnimo macnaheedu tahay fisqi weyn baa jira wahaakadaa macsida sidoo kale weeyaan tawalliga sidoo kale weeye marka waxaasoo dhan waa asmaa darajooyin leh akbarkeeda diinta looga baxaa waxaa ka hooseeyana asqar ayuu noqonayaa maxaa yeelay iimaanka muqaabilkiisa weeye sida iimaankuba aslul iimaan u lahaa iyo alkamaal alwaajib iyo alkamaal mustaxab u lahaa sidoo kale muqaabilkiisuna mid weyn buu leeyahay mid dhexe ayuu leeyahay mid hoose oo saqaa'ir la yidhaaho ayuu leeyahay sidoo kale waxaa weeye qofka muuminka qalbigiisa iimaankuna waa ku jiri karaa kufrina waa ku jiri karaa haddaba kufrigaas kii weynaa maaha qofka muumin ah oo aslul iimaan haysta ayaa xoogaa nifaaq ah iyo xoogaa kufri ah baa qofka qalbigiisa geli kara sidoo kale qofka asagoo muwaxid ah ayuu xoogaa shirki asqara qalbigiisa ku jiri karaa marka waa in la fahmaa sida tahay caqiidada ahlusunna waljamaca waxaa weeyaan qofka qalbigiisu iimaan iyo tawxiid iyo wanaag waa ku jiri karaa waxaana helin kara wax xoogaa ceebaal ah oo maarata iimaankiisa nusqaaminaya oo xoogaa shirki yara iyo nifaaq yara iyo qof qalbigiisa ku jiri kara marka sida ay leeyihiin dadka maxaanku rahaa khawaarijta oo kale oo qofku maaragta haddii wax saasa laga arko waa gaaloobe ee la leeyahay sax ma aha qofka qalbigiisu waa meel ballaaran weeyaan maaragta wixii wanaagsanana waa laga heli karaa waxooga dheehano isku jirana waa laga heli karaa marka qalbiga iimaan waa ku jiri karaa kufri asqar asagoo la jiro qofka tawxiidka ku jiri kara qalbigiisa asagoo la jiro shirki asqara taas ayadana in la fahmo ayaa loo baahan yahay nuqdadan waxaa weeyaa marka gaalaysiinta waxaa la gaalaysiina lafteeda in laga hadlaa loo baahan yahay maxaa yeelay waa mas'alo runtii aad iyo aad la isku khilaafi jiray mar hore ilaa haddana isku khilaafahayo yani firaq munxarifana way ka jirtaa dadka qaar ayaa runtii maarata ka gaabinhaya oo tafriid ay ku dhacahayaan oo waxa ilaahay subxaana wa tacaala waa gaalnimo uu yidhi in la daahda in maaragtay la qarqariyo ama la maldaho ama ummadda loo fududeeyo ama ummadda la hoosgeliyo sax ma aha taa waa tafriid in la sameeyo ifraadna ma aha oo waxaan gaalnimo ahayn dadka lagu gaalaysiiyo ama wax gaalnimo ah sidii dadka lagu gaalaysiin jiray iyo ijraa'aadkeedii iyo processkeedii aan la maraynin ayada runtii ifraad baa ka dhalanaya marka waxaan leenahay takfiirka waxaa la gaalaysiiyaa xukmi sharci ah weeyaan in la iska tuurtuuro oo dadka lagu gamgamo oo dadka lagu ceebceebeeyo sidii wax iska fudud ma ahane wuxuu u baahan yahay bayina wuxuu u baahan yahay burhaan oo xagga ilaahi subxaana wa tacaala ah iyo xagga rasuulkiisa maxaa yeelay gaalaysiinta axkaam baa ka imaanaysa oo qofkii dhiiggiisa banaanaanaya qofkii nikaaxiisii baa burahaya qofkii ciddii dhexal lahayd bay maarata bay kala tegayaan qofkii wixii uu gowracaya xaaraan noqonaya ilaa akhiri marka intaasoo axkaam ah baa ka ratimaysa runtii oo khatar ah marka in la iska fududaysto oo dadku maaragtay carabkooda maaragtay ku isticmaalaan
oo yani qofka lagu tuurtuuro shay sax maaha waxaan loo baahan in loo daayo dadka ahlu cilmiga in loo daayo ayaga ayaa maaragtay nooga filan ayaga ayaa wixii jira insha allahu tacaala sheegahaya ayaga ayaa shuruuda garanhaya ayaga ayaa mawaanicda garanhaya iyo ciddii maalan qaadi oo kale ah oo arrinkaas kala xukminaysa in loo daayo ayaa loo baahan yahay maxaa yeelay cilmina waa u baahan yahay waxa lagu kala hubsado awood waxaan soo afjartana waa loo baahan yahay oo xukmisa midda labaad waxaa weeye dadka ahlu qiblaha ah oo muslimiinta ah oo ahlu tawxiidka ah in macaasi lagu gaalaysiiyo lama ogola sidai ahaan jirtay madhabka khawaarijta ay oran jireen qofkii ku dhacaa macsi iimaanku waayey oo waa gaaloobi maxaa yeele macsida macnaheedu waxa weye ilaahay la caasiye weeye ilaahay subxana watacaala oo amarkiisa la fududaystay weeyaan waa tahay laakiin gaalnimo ma aha marka macaasi oo dhan in ummadda lagu gaalaysiiyo iyo kabaa'irta ama saqaa'irta arrinkaasi khatar weeye sida khawaarijta ay samayn jireen laakiin qofku hadduu macsidii uu banaysanhayo uu macsidii maaragtay maxaanku uu leeyahay waa i xalaal taas macnaheedu waxaa weeye qofku uu beeniyey naskii maaragtay naskii waxaan xarimay inuu beeniyey baa laga fahmayaa marka midaas ayadu gaalnimo waa keeni kartaa laakiin macsida caadiga ah ama ha noqoto kabiiro ama ha noqoto saqiiro qofka muslimka muwaxidkaa laguma gaalaysiin karo يعني قفك هدي وما ركتي معلوم من الدين بضرورة إنكر أصنه وقالوا بيا لكن معلوم من الدين بضرورة صنصور شيء شيء وحويان محاكورة مركز تا ظروف تجرتا هي فرصتها علم الجراء هي فرصتها الجراء وما ركتي وحشية جدا أي كحرنت أي لفتيد marka qofka macsi ku gaalaysiin meene qofka haduu macsi uu maaragtay istihlaal sado waa lagu gaalaysiinaya qofka haduu macluum min diin bidaruura inkiro waa lagu gaalaysiinaya qofka haduu la yimaado naaqid min nawaaqid al-islam wal iimaan ayadana waa lagu gaalaysiinaya laakiin macdaalka cid gaalaysiinaysa waa dadkii culumada ah oo waxaan yaqaanay iyo dadkii loo xisaartay ama qudaada ah weey waxa muhiim ah in la kala saaro at-takfir al-mutlaq wa takfir al-muayyan تكفير كمطلقة ووحى ويان وحاس وقالنمو وحاس دينته لو قبحها أريكا وحلو يقانا تكفير مطلق بالله يراها وإن ذاتك الله شيء وحا قالنم ذا اللي يراها وذاتك اللي قدقو وعلمي قال الله فيديو وشيء لو باهيه مركا تكفير مطلق بالله يراها هذا قف قال هذا ما هي وحا يقودهان لو شيء هي وحا مثلا من قال كذا كفر من قال من فعل كذا أشرك وحرمتك أو كلويان كاسوا نوع وأصلا ذلك الدعاء يذلك علماء أيها دي علمك في دينها لكن تكفير المعين إن قف قار الله قال يسيه ومقعي شخص يسال قال يسيه أيضا باب كلوي وحاويان وتنزيل الحكم على شخص معين حكمك قف قار لو رده يويان تاسين هذا سان سومريني شروط أباهنتهاي ما ركت بروسيس بأباهنتهاي ضد وحن يقان أو قارو ayay maxaan ku rahaa u baahan tahay marka mid hore wax sheegida oo dadka loo digaya hada culimada iyo ducaada iyo cidii taqaan oo dhan waa sameyn kartaa laakiin qof la xukuminayo oo qof muayyan la xukuminayo ama koox muayyan la yaqaan la xukuminayo arinkaasi waa xukun aad u adag wuxuu u baahan yahay cilmi gaar u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dad waxaas yaqaana oo loo xilsaaray ayuu u baahan yahay oo processkeeda ijraa'aadkeeda marsiin kara weey saddexaad waxaan cadeynaynaa anagu sida murji'ada oo kale ma oranayno laa yadurru ma'a al-iimaani ma'siya ma oranayno ama laa yadurru ma'a al-iimaani dhanb ma oranayne macsida iyo dhanbigu iimaanka dhaawac buu gaarsiinayaa waa nusqaaminaya saaxiibka maartay qofka la yimaada macsiyada ama la yimaada dhanbigana waciidkii ayaa runtii ku hoos jira hadii Ilaahay doona subhanahu wa ta'ala uu cafinaya hadii Ilaahay doona uu ku ciqaabaya marka qowlka murji'ada oo iimaanku mar hadii qofka iimaan laga helay bas weeye iimaankiisu waa dhameystiran yahay oo qofka faasiqa oo caasiga ahi oo dambiilaha wuxuu la mid yahay jibriil buu la mid yahay ama ambiyadu la mid yahay arinkaasi qowl sax ma aha mid afraad waxaan ku cadeynaynaa waxa jira qaacida mashhuur oo maartay culimadu ay sheegeen laakiin si khaldan loo fahmay qaacidadaas oo man lam yukaffir al-kaafira fa huwa kaafir qofkii gaalka aan gaalaysiinin asna waa gaal qaacidada macnaheedu waa sax laakiin waxa laga hadlayaa waxa weeyaan kaafirka nas ku soo arooray bi'aynihi inuu gaal yahay baa laga hadlayaa
مثلا يهودا أما نصارى أما أفراد إلهي تلمام سيد فرعون أو كله هي أبي لهب هي وحلا مذكا أما أشخاص أما فرق إلهي مقعابي أما النبي صلى الله عليه وسلم مقعابي إن قال يهين هذا إن الرميين قال يهين وواجب qofkii diidaana naska ayuu diidayaa qofkii naska diidaana takdiib ku dhacayaa qofkii de aan ku dhaca takdiibna waa gaaloobayaa taas loo jeedaayo macnaheedu ma aha qof muslim aha oo la isku khilaafsan yahay gaal miya mase ma aha ma gaaloobin mase ma gaaloobin arrinkaas ma aha maxaa yeelay qof muslim inuu gaaloobay waa maxal ijtihaad weeye waa la isku khilaafi karaa laba qaadi baa isku khilaafi kartaa laba caalim baa isku khilaafi kartaa marka mas'aladaasi saas ma ay aha maxaa yeelay yani qof in la xukmiyahay waa maxal ijtihaad weeye shay maxal ijtihaad ahna qofka lagu magaalaysiin karo haduu ku khilaafo midda in la fahmo loo baahan yahay oo مثلا qof baa ku oranaya hebel ana gaalaysiin maxaa u gaalaysiin weeday haddii aan gaalaysiin adaa gaala buu ku oranaya oo adigu maxaa tahay adigu nas ma tihid macsuum ma tihid qur'aan ma tihid xadiithna ma tihid qofkii ilaahay ii sheegay inuu gaal yahay waan rumaynayaa qofkii inuu asal ii sheegay inuu gaal yahay bicayni waan rumaynayaa yahuudu waa gaalo nasaaradu waa gaalo majuustu waa gaalo wixii aan tawxiidka soo galin kulli waa gaalo fircoon gaal weeye abulahab gaal buu hakada laakiin qofkaan muslim weeye waa ridoobay iyo ma ridoobin waa la soo khilaafi karaa hadii marka adiga ay ku cadaatay hadii aniga ima cadaanin adiga hadalkaadu hadal mulzim aniga ugu ah ma aha laba qaadi baa soo khilaafi karta sida aan sheegay marka waxa loo baahan yahay la iska ilaaliyo arrinka noocaas oo kala ah oo dadka maartay aan lagu gaalaysiinin hadii aan soo koobo marka baabkan gaalaysiinta waxa ka jiraay dhowr khalad baa jirta mid waxa weeye in waxaan gaalnimo ahayn ba dadka lagu gaalaysiin maanta aad u badan tahay oo qofkaas waa gaaloobay maxaa yeelay gaal buu salaamay ama gaal buu u tagay ama gaal buu la fariistay waxa la mid noocaas oo kala ma aragtay ayaa arkaysa marka dadka oo lagu gaalaysiiyo waxaan dambi ahayn ama dambi kabiira ah ama dambi sagiira ah arrinkaas waa khatar kala waxa khatar ah qofku hadii xataa waxa gaalnimo uu ku dhaco in la gaalaysiiyo ay u baahan tahay qawaacid bay leedahay dawaabit ayay leedahay shuruudii ma la helay mawaanicdii meesha ma ka maqan tahay qofkaan macduur ma yahay ma ahamiya arrinka noocaas ay u baahan tahay marka ayada iyo aan la maraynin processkaas oo qofka lagu tuurahayo arrinkaas khatar weey maxaa yeelay waxay khilaafsan tahay qaacidadii ahayd ay سمجة أهل السنة أوها التفريق بين الفعل والفاعل التفريق بين القول والقائل قولك وشركي أما وكفري لكن قائلك معها فعلك ما كفري أما وشركي لكن فاعلك معها محايا المسافة أوضح يسوه وحاوي مسافة ذاسي أنت مارت إن له بصدق وشروط الاسكاء الآلية ويان وموانع الاسكاء فيرية ويان marka ayadu aan fiirin dawaabidi ida fa'ala kufran fa huwa kafirun wa ida qala kufran fa huwa kafirun oo toos ah oo aan kala saaraynin bayna alqawli wal qa'il wa bayna alfi'li wal fa'il oo shuruudi aan fiirinin aan fiirin mawaanicdi khatar weey waxa kale khatara takfiirka noocaas oo kala oo dadkii ahlka u ahaa ama cilmigiisa lahaa ama fahamkiisa lahaa ee maaratay isan ka imaanin dad aan fahamsanayn oo aan cilmi lahayn ay ku fududaanayaan ama aan loo idmin ama aan loo maaragtay maxaa loo xil saarin ama aan awoodeeda lahayn ayada lafteedana inuu ka yimaado maaragtay aan waa khatar marka takfiirka shuruudihiisa leh arkaantiisa leh dawaabidiisa leh dadka yaqaana ayaa go'aankiisa iska leh insha Allah taala waxaan galaynaa baabka 8aad baabkan ka wada 6aad oo ah baabul qadaa wal qadar oo runtii baab muhiim ah kana mid arkaanta islaamka waxaan lagu soo daray manhajkan waa meelaha culimada salafka ama ahlus sunnah ay maaraan ka hadlaan maxaa yeelay fiqh munharif ah oo baabkan ku inxiraafay oo maaragtay tahriifi ayaa jira waxaana weeyaan firqada loo yaqaan al-qadariyya oo macnaheedu yahay midda qadarka inkirta oo tiraaho qadar ma jiraba qadar ma jiro wax kasta haday bilaabanayaan qolo tiraaha iyo kuwa yiraaha loo yaqaan al-jabariyya oo oranaya qofku ikhtiyaar ma laha awoodna ma laha iraadana ma laha qofku maaragtay waa mujbar wuxuu sameeyo ku khasban yahay qofku maaragtay maxaan ku raawaa kariishatin mu'allaqatin fil hawa qofku maar waxa yani hawada bidaya oo kale laga dhigayo labadaba laba firqood oo khaldan weeyaan
laakiin ahlu sunna wal jamaacahu waxay aaminsan yihiin qadartu waa jirtaa qaduhu waa jiraa Allah subxaanahu wa tacaala ayaa ma wax kasoo dhacaya asagaa og asagaa maaragtay la socda asagaa qadaray asagaa xukumay dadkuna awood bay leeyihiin iraadana waa leeyihiin laakiin iraadadooda iyo doonistooda iyo awoodooda Allah subxaanahu wa tacaala tiisa ayay soo hoosgalahayaan qadarku 4 darajo in la rumeeyo weeyaan mid kale waxa weeyaan cilmiga Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu Ilaahay u cilmi leeyahay wax kasta oo dhacaya koonkan uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka warqabo ama ha yaraadaan ama maaragtay ha weynaadaan tan labaad wax kasta oo ka dhacaya koonkan in la qoray oo ay ku yaalaan loox maxfuudka saddexaad waxa weeye wax dhacaya wax Ilaahay doonay oo Ilaahay qadaray oo ku dhacaya awoodiisa weeyaan afraad waxa weeye wax dhacaya wax Ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuristiisa ku dhacay weeye marka afarta shay in la rumeeyo ayaa loo baahan yahay runtii marka hadii la rumeeyana qofka qalbigiisa baa xasilahaya qofku wixii ku dhacay oo sabrahaya ajir buu ka helayaa insha Allah taala noloshiisa ayaa soconaysa laakiin qofku uu rumeeyo inuu maar waxa asaga maaragtay aan la qadarin oo maxaan ku yiraahdaa balaaya ku dhacday qofku uu maaragtay walwalahaya marka qadarta iyo qaduhu iimaanka arkaantiisa kamid yihiin qofkuna xasilooni iyo wanaag iyo nolol fiican oo macaan ayay siinayaan آخرين إن شاء الله أجر أيها لقيه لهيا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته